habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka caawiya caalamka waxaan hay Cabdiraxmaan Bidhaan qodobada wararkan waxa ugu waaweyn dawladda Kenya ayaa joojisay duulimaadyadii tooska ah ee Muqdisho iyo Nairobi waxaana maanta laga bilaabo diyaaradaha Soomaaliya ka soo duulamari doonaan magaalada Wajeer waxaanu eegi doonaa saameynta uu go'aankani ku yeelan karo shirkadaha diyaaradaha iyo rakaabka wararka kalena waxa kamid ah waxaa dilay burcad iyagoo baaritaan cilmi waday oo carruurta ah waxaan warbixin idinka haynaa Ethiopia oo wararka beenta ah cawaaqib xun ku yeesheen sanad baa ka soo wareegay tan iyo markii biyo-xidheenka Kenya ee Solai uu jabiyay oodaha waxaanu eegaynaa bal sida xaaladdu dadku ay tahay shaqaalaha mustaqbalku ma sidan ay noqon doonaan shirkadda Ford ayaa shaqaalaysiinaysa robotyo waa caawiya barnaamijka Click kala soco BBC News Somali Television-ka raadiyaha online-ka iyo bogagga bulshada halkani waa London caawiya caalamka aynu ku bilownaa dawladda Kenya ayaa joojisay duulimaadyadii tooska ahaa ee Muqdisho iyo Nairobi hay'adda duulimaadyada hawada ayaa digreeto ay soo saartay waxa ku qornaa oo lagu sheegay in dhammaanba duulimaadyada ka imanaya Muqdisho Soomaaliya waa inay soo maraan balad Wajeer si loo mariyo baaritaan amni ka hor inta aanay gudbin halka uu safarkoodu ku dhamaanayo diyaaradahaasi go'aankan hadaba waxa uu yahay oo soo afjaraya duulimaadyadii tooska ahaa ee la isaga kala dhoofi jiray garoomada Jomo Kenyatta iyo Aadan Cadde oo socday labadii sano ee ugu dambeeyay kadib markii ay heshiis wada gaadheen dawladaha Kenya iyo Soomaaliya kaasi oo soo afjaray xayiraadii duulimaadyada tooska ahaa ee taagnaa muddo 10 sanadood haddii aynu eegno xagga khariirada waxaanu arkaynaa marka laga imanayo magaalada Muqdisho ka soo baxaysa ama guud ahaan Soomaaliya waa inay soo maraan halkan oo iyadu ah Wajeer oo ku taala waqooyi bari ee dalkaasi Kenya halkaasi oo inta aanay u gudbin caasimadda magaalada Nairobi lagu baari doono haddii aynu eegno dhanka kalena gudoomiyaha ururka ay leeyihiin shirkadaha diyaaradaha Soomaaliya Xasan Xaashi oo raadiyaha BBC la hadlay ayaa sheegay in go'aankan uu sababi doono kharashaad dheeraad ah iyo in waqtigu uu kaga lumo dadka halkaasi maraya haddaba si aan wax badan uga ogaano arrimahan waxa aanu saameynta arrintan ay yeelan karto waxa khadka Skype ee magaalada Toronto ku jira Axmed Guure oo isagu ah khabiir xagga duulimaadyada ah Axmed ku soo dhawo BBC-da maxaad u aragtaa go'aanka xilligan Kenya gaadhay Axmedow waa mahadsantahay runtii go'aankan waa go'aan runtii dhibaato badan u geysan doono shacabka u kala duulo Nairobi iyo Xamar saameyn weyn oo ku yeelan doona haddii aan soo qaado sababaha keenay haddii aan waxyar ka taabto oo la saadaali karo waxaa dhici karto in ay xog heleen dawladda Kenya xoggaas oo mataqaana argagixiso ku saabsan gaar ahaan bishan barakeysan ee Ramadaan lagana yaabo in ay tahay waqti gaaban inay noqon doonto oo haddii laga baxo bisha Ramadaan in sheekadan ay meesha ku dhamaan doonto waa suuragal waa kulli sidaan qiyaasayno midda kale oo la xiriirto waxa waaye xiriirka diblomaasiyadda oo sii xumaanay Soomaaliya iyo muxuu ah iyo Kenya oo badii la isku haystay ay salka ku haysaa oo wayaan daba ogtahay heshiiska Soomaaliya iyo Kenya ma wanaagsaneen waxa laga yaabaa in culays badan lagu saaray dawladda Soomaaliya si arrintan ay mataqaana u fududeyso oo maxkamaddii ayaa soo dhow oo bisha November lagu dhawaaqaya taa waa loo saari waa la dhihi karaa asaas ay u leedahay midda saddexaad oo aan ku dari karin waxa waaye sidaad ka warqabto shirkadda Kenya Airways waxay u duushaa waddanka New York magaalada New York ee dalka Mareykanka laga yaabay dawladda Mareykanka in culays ku saartay ay tiri diyaaradaha ka imaanaya Soomaaliya baaritaan ziyada waan gartay marka waxaan oran karnaa miya siyaasaddiiba ka awood badan arrimihii amniga oo siyaasad badan baa ku jirta go'aankan waa runtii siyaasadda Kenya iyo Soomaaliya isku hayaan siyaasad oo yar maaha waa siyaasad mataqaana aad u qoto dheer oo ogtahay xiriirkii mataqaana xataa safaaradii inay kala maqan yihiin marka arrintii siyaasadda aad ay xoogan tahay runtii waan gartay adigu duuliya tahay khibrad baad u leedahay diyaaradaha iyo rakaabka dadkina imka Wajeer bay sii marayaan dadka Soomaalida rakaabka iyo ganacsatadii iyo dhib intee lag bay ku keeni karaysaa runtii dhibaato weyn ay u geysanaysaa hadda aan kula hadlayo telefoon ayaan ka helay Nairobi oo dadkii ka yimid muxuu ah ay waramayaan waxa ay Wajeer ay joogeen maanta muddo ka badan 3 saac
ayay joogeen 3 saacadood oo wajeer ah ayagoo joogay ayaa mataqaanaa muxuu ahaa waad garan kartaa qaabka mataqaanaa meeshaas dhibaatada ku tahay waad mahadsan tahay wuxuu ahaa duuliye sare Axmed Xaaji Cilmi Guure oo khadka kaga soo jiray magaalada Ottawa ee dalkaasi Canada dhanka Ethiopia hadaynu u gudubno sanadkii hore bishii 10aad 3 cilmi baarayaal oo ka soo jeeda magaalada caasimadda Addis Ababa ayaa u safray tuulada Gonji oo ku taala gobolka Amxaarada si ay u baaraan gooryaanada mindhicirka gala caruurta iskuuleyda ah laba kamid ah ayaa waxa dilay hadaba koox ku soo duushay oo u haysatay inay caruurtaasi sumeynayaan cilmi baarihii saddexaad ayaa isagu ka badbaaday laakiin dhaawacay noloshiisa bedelay ayaa ay ku dhigeen burcadaasi Aisha Afrax ayaa ka waramaysa ilkaha hore oo dhan ayaa iga daatay cirid ma jiro 6 toddobaad ayaan isbitaal ku jiray anigoon miyir lahayn wixii maalintaas igu dhacay darteed Haile Jesus Mulu waa shay baariste bishii Oktoobar ee tagtay ayaa laga codsaday inuu la shaqeeyo Dr. Tafere Dr. Tafere ayaa doonayay inuu baaritaan ku sameeyo saxarada caruur dhigatay iskuulada tuulada Goni ee gobolka Amxaarada si uu uga baaro gooryaanada mindhicirada galo. Saddexdan cilmi baare ayaa fasax buuxa ka haystay dawladda inay baaritaankooda sameeyaan balse dhibaato ayaa ku dhacday. mustaqbal akaabisiyon arsamamru wuxullanalan abaarihii 11kii ayuu maamuluhu nagu yiri taga ardaydu ma ahayn waa bulshada waxay nagu yiraahdeen caruurta ayaad sumaynaysaan qof baa ku yiri waxa loo soo diray in ay caruurtu idinka sumeeyaan እንደዛ ሲባል ወላጆች መጣው ከጥር ውጭ እየጠበቁን ነው እኛን labadii cilmi baarayaal ee kale waa la dilay isaga kaliya wuxuu ku badbaaday inay burcadu u qaateen inuu dhintay Biazani Gumeles waa madaxa iskuulka Goni Kolala አበረሰው ጋር መግባባት ስራ ስሩ አቁሙና waxaan ku idhi cilmi baarayaasha inay dadka la hadlaan oo ay u sharxaan Dr. Tafere ayaa ii sheegay markaas inuusan cabsanayn uu sharci ku joogo dalka kaliya wuxuu rabay in saxaro iyo kaadi uu ka qaado bukaanada dhibaataba uusan filayn marka aan albaabka tagnay ayaan aragnay dad fara badan oo inagu soo xoomay suuqyada tuuladan noloshu sideedii hore ayay ku soo noqotay balse qoysaska cilmi baarayaashii la dilay ayaa doonaya sababta loo dilay inay ogaadaan 42 jir ayuu ahaa waqtina uma uusan helin inuu guursado wuxuu aqbalay inuu guursado ka hor inta uusan aadin tuulada nasiib darrase ma qornayn waxa kaliya uu rabo waxay ahayd inuu taariikh reebo isagoo bini aadamkana caawinayay cilmigiisana sii wadaagayay boolisku waxay sheegayaan inay weli baarayaan ciddii dilka geysatay 27 tuhunsanayaal ayaa ilaa iyo hadda la soo xiray balse arrintan xaggay ka bilaabatay yaa mas'uul ka ah iyo in qof lagu heli doono dembigan iyo in kale ayaan weli kala cadayn bal markan aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka maanta 8 milyan oo qof ayaa uga yaacay guryahooda sanadkii hore kadib markii masiibooyin haleeleen dagaalo iyo rabshado oo warbixin laga soo saaray xarunta la socodka dadka barakacayaasha caalamka ayaa sheegaysa in masiibooyinka dabiiciga ay iyagu ugu horeeyaan laakiinse dagaalada ka socda Congo, Syria, Ethiopia, Cameroon iyo Nigeria ayaa iyaguna dad badan ku barakaceen. wadahadallada ganacsi ee u socda Mareykanka iyo Shiinaha ayaa la filayaa inay maanta dib u bilowdaan. Tani ayaa imanaysa kadib markii xalay Mareykanku laabeen cashuuraha alaabta qiyaasteedu gaadhay 200 milyan oo Shiinuhu leeyahay saarayaan. Shiinaha ayaa iyaguna ku hanjabay in sidaas kale yeelayaan. Jeff Bezos oo ah ninka aasaasay shirkadda Amazon ayaa soo bandhigay dayax gacmeed dayaxa fadhiisan karaya ninkan bilyaneerka ah ayaa dayaxa u diri doona dad iyo alaabo 5 sano ee soo socda madaxweyne Trump ayaa isna qorsheysanay inuu 2024 halkaasi dad geeyo sanad ka hor maanta oo kale magaalada Solay ee waqooyiga galbeed ee Kenya waxaa ka dhacday masiibo kadib markii webiga halkaasi uu biyo xidhan ku fatahay inaade 48 ruux ayaa ku dhintay waxaana la xiray milkiilayaasha beerta Patel oo iyagu halkii biyo xidhan ku lahaa haddaba magaaladu sidee uga soo kabanaysaa waa kan Cismaan Cabdi Xasan fiid hore 9kii bishii May 2018 guux sida roob xoogan ah ayaa hawada galay daqiiqada kadibna dhibaata xigtay biyo xireenka Milmed oo 10 sano ah isha waraabka dhulbeereedka ku hareeraysan halkaasi oo lagu beero ubax lows caleen iyo qaxwo ayaa daafaha goostay biyaha biyo xireenka
waxay xawaaradan 200 oo kilomitir saacaddii ku burburiyeen 5 tuulo dhimasho iyo dhaawac badan ayuu sababay hanti badan ayaa ku burburtay in ka badan 2,000 oo ruuxna way ku guryo beeleen guriga John Mwangi waxa uu ku yaalay jidka biyaha fatahay 48 ruux ayaa musiibadaasi ku naf waayay. Then I could see something very dark moving above the trees because there was waxaan arkay wax madow oo dul socda dhirta dusheeda waayo iftiinka dayaxa ayaa yara jiray wax aad u madow ayaa dul socday oo dabeetana xagga gurigayga u soo dhaqaaqay dabeetana waan dhaqaaqi kari waayay waxba igu dhagay markaan maqlay bogna waan qayliyay waxaan ogaaday inay wax dhaceen waxaan is idhi way wada dhinteen nolosheedu way baabaaday haddii aanan helin gargaar way ii dhammaatay. John waxa uu suura gashay inuu la baxsado labadiisa gabdhood balse xaaskiisa ayaa ku qarqantay wuxuuna geeyay halkii lagu aasay 9 ruux oo ay ku jiraan labadii milkiile ayay maxkamadda nafiisha dacwad ku soo oogtay oo la xiriirta dhimashada 9 waxay wajahayaan eeda ah dil iyo dayacaad howlo guud kuwaas oo ay dhammaantood beeniyeen kana hor yimaadeen sanad kadib weli arrinta maxkamadda ayay taallaa waxaan la kulannay Daya Aja oo ah maamulka ku-xigeenka beerta Batel. hagaag ma aanan sii saadaalin waxa ay ahayd musiibo dabiici ah subaxdii ayay ahayd markii aan dhabtii ogaanay baaxadda waxyeellada sanad kadib markii musiibadii biyo-xireenka ee galaafatay 12 ruux waxa kaliya ee ka haray magaalo camirnayd waa burburkan balse samafalayaal ayaa gacan ka geystay caawinta kuwii ka badbaaday iyagoo u dhisay dhismooyin rasmi ah sida kuwan. waxaanu isu soo noqonaynaa qadar yar kadib. weli waxaad daawanaysaan caawiya caalamka balaadan xusuusiyo qodobada caawa wararka ugu waaweyn. dowladda Kenya ayaa joojisay duulimaadyadii tooska ahaa ee Muqdisho iyo Nairobi. weli waxay noo soo socda qosol iyo qoobka ciyaar waxaan idiin soo bandhigaynaa sheekada wiil yar oo dagaalka Afghanistan ka badbaaday. ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye waxaa maanta magaalada Hargeysa ku geeriyooday Xaaji Cabdikariin Xuseen oo ku magac dheeraa Cabdi Waraabe waxa uu ahaa xubinta ugu da'da weyn golaha guurtida Jamhuuriyadda iskeed ku dhawaaqday madax bannaanida ee Soomaaliland waxaana uu caan ku ahaa shaqaynta nabadda waxa uu xaajigu sheegay inuu cafiyay ninkii aabihii dilay waxa kale oo Cabdikariin lagu xasuustaa inuu marar badan ka qayb galay hawlaha nabadeynta haddaba waxaanu taariikhda Xaaji Cabdikariin Xuseen wax hal iyo laba ka inooga sheegaya Booba Yuusuf Ducaale oo ah qoraal reer Soomaaliland ah Boobe ku soo dhawow barnaamijka BBC-da maxaad nooga sheegi karaysaa Allah u naxariistay Xaaji Cabdi taariikhdiisa adigoo soo koobaya. naxariistii janna ilaahay siiyo ehelkii iyo dadka Soomaaliyeed guud ahaanba ilaahay samiriye imaan ka siiyo. Xaaji Cabdi markaynu ka hadlayno waxaynu ka hadlaynaa qof kama hadlayno qolo kama hadlayno qoys kama hadlayno waxaynu ka hadlaynaa quruumo. Xaaji Cabdikariin Xuseen oo Cabdi Waraabe loo yaqaanay wuxuu ahaa jaamicad buu ahaa madrasad buu ahaa iskuul buu ahaa qof mu ahayn xaajigu waxaad arkaysaa oo aad ka dheehanaysa xaajigii oday Soomaaliyeed xaajigoo caaqila isagoo suldaana isagoo jirrabe iyo kitaabiye nolosha ah waxaad arkaysaa isagoo keenadiida isagoo hadal cadcad oon cidna kala gabanin qaabka khudbadaha loo akhriyo ama hadalka loo tabiyo isagoo waxna reebin waxna dhimin ayuu dadka si wanaagsan ula hadli jiray marka imika haday arday Soomaaliyeed istiraada xaajiga ku qalin jabiya waxay haystaan 1,000 shakhsiyadood oo tii ay doonaan ay la soo bixi karaan. Xaaji Cabdi wuxuu ka mid ahaa haddii Soomaaliland lagu majarta nabad iyo dib u heshiisiin dimuqraadiyadeed iyo geedi socod dimuqraadiyadeed xaaji wuxuu ahaa farshaxanadii fanka iyo sida quruxda badan u falkiyay arrintaas shirkii Boorame ee uu kula bahda ahaa odayaashii la midka ahaa. xaajiga taasaa lagu xasuusanayaa nabadeyn baa lagu xasuusanayaa murtidhaari uu ahaa xaajiga dib u heshiisiin baa lagu xasuusanayaa waan gartay Boobe waan soo koobsananaa su'aalaha waad ogtahay xaajigu siyaasadda Soomaalidana in badan buu ku soo jiray marka mar walba wuxuu ahaa xagga nabadda ayuu isagu u badnaa iyo in fidmada la kicin laakiin mararka qaar dadku sidaa bay fahmi jirin xaajiga maxaad nooga sheegi karaysaa qodob iyo laba go'aamadii adkaa ee uu qaatay xaajigu
ee nabadgelyada ahaa iyo wanaagga ummadda xaajigu waa tii aad marka hore soo sheegtay oo horta waa ninka isagoo da'daasa oo yaraa ninkii aabbihii dilay loo diray si uu uga soo aargoosto ee uga soo noqday nabad halkaasuu kaga soo dhaqaaquu kaga soo bilaabay xaajigu wuxuu caan ku ahaa inaanu dowlad ka fogaanin anigu nin dhallinyaraa baan ahay oo esanan ka tirsan oo dagaalamayey waan la yaabi jiray laakiin tii 88 baan xasuustaa maruu noogu yimid geed hoostii nagula hadlayey oo lahaa waar ismaanaan lahayn dowlad baa lala dagaalami karaa annaga dadka idinka haynay waanu idinla jirnaa marka xaajigu geesi buu ku ahaa go'aan qaadashada geesi buu ku ahaa mar walba inuu daafaco nidaamka iyo dowladnimada jiritaanka iyo deganaanshaha waan gartay boobe waad ogtay xaajigu ilaahay u naxariistee wuxuu ka tegey dhaxal weyn buu ka tegey taariikh buu ka tegey idinka iminka Soomaaliland oo kale siyaasiyiintii iyo oday dhaqameedkii iyo dadkii maxay ka baran kareen ama dadka Soomaaliyeedba waxaan ku idhi jaamacad buu ahaayo iskuul buu ahaayo ninba meeshuu doonu ka qabsanaya xaajigu ma ahayn qof intuu qof qaato uu odhanaya waxbaan ka qorayaa dhinacyadiisii baa la eegayaa markaa xaajiga qaabkii uu khudbadaha u jeedin jiray qaabkii uu dadka ula dardaarmi jiray qaabkii uu isagu u yaqaanay dowlad dhiska iyo dimuqraadiyadeynta iyo nabadeynta iyo dib u heshiisiinta xaajigu ninkaa faraha badan buu ahaayo waxaan xasuustaa muuse galaalo encyclopedia afrika laga qorayo xubin uga ahaa ka qayb galay dadka Soomaaliyeed waxaan isleeyahay haddii guurti adduunka ah ama guurti qaaradeed oo Afrika la samayn lahaa xaajigu wuxuu ka mid noqon lahaa dadka wakiilka ka ah dadka degan goboladan geeska Afrika aad baad u mahadsan tahay booba Yuusuf Tacaale oo qoraa ah soo nooga warramay taariikhda xaaji Cabdi Xuseen Cabdi Waraabe oo maanta Hargeysa ku dhintay Allah u naxariisto sanad badan Afghanistan waxay ahayd dal dagaal aafeeyeen talaabadan Taliban ayaa wali iyagu olole dagaal halkaasi ka wada oo dawladda Kaabul ku haya inta badan waxyeeladu waxay soo gaadhaa dadka rayidka warbixintan waxaan inoo ugu eegaya xaaladda dadka rayidka aadan maxamed cabdi saalimiin wiil 5 sano jir ah oo ku faraxsan sida uu yahay axmed waxa uu jecel yahay qoobka ciyaarka fiidiyowgan waxaa daawaday dad ka badan nus milyuun hal maalin oo kaliya kadib markii la dhigay baraha bulshada waad aragtaa axmed inuusan ahayn wiil caadi ah waxa uu ka badbaaday dagaal iyo lugta oo go'an waxa uu jiray 8 bilood oo kaliya markii isaga oo la jooga walaashiisa uu si xun ugu dhaawacmay dagaal u dhaxeeya Taliban iyo ciidamada Afghanistan waxa uu ku waayay lugtiisa inta jilibka ka hooseysa laakiin kani waa wiil aan isdhiibin aad ayaan ugu faraxsanahay isaga ayay tiri hooyadiis Ra'iisa inuu hadda yahay mid madax bannaan sida laga soo xigtay qaramada midoobay sanadkii tagay ku dhawaad 4,000 oo qof ayaa lagu dilay dagaalka sokeeye ee ka soconaya Afghanistan waa sanadkii ugu dhimashada badnaa tiradaasi 900 oo kamid ahi waa caruur 7,000 oo qof oo kale ayaa ku dhaawacantay taasi waxay fasiraysaa cisbitaalkan kaliya oo ku yaala Kaabul inuu door muhiim ah u ciyaarayo waan ku faraxnaa markaan aragno hooyo ilmaheeda oo lug ka go'an keentay laakiin oo ka tagtay isagoo lug macmal ah ku soconaya axmed oo dhoola cadaynaya isaga oo ciyaaraya waxay cadayn u tahay in xitaa waqtiga ugu niyad jabka weyn ay rajo jiri karto waxa weeyaan waa qiso cajiib ah wiilka yar ee ku curyaamay dagaalada Afghanistan ee imkana farxadda ay helaya haddaynu imkana eegno wararka ciyaaraha axaddan soo socota ayaa la soo gabagabeynayaa xil ciyaareedka horyaalka Ingiriiska ee Premiershipka laakiin farcididood ayaa lagu kala qaadayaa la leeyahay koobka Manchester City iyo Liverpool ayaa waxa u dhaxeeyay dhibic kaliya oo aad ay ugu hardamayaan sida ay koobka u helayeen kooxda horyaalka hore difaacanaysa ee Man City ayaa iyagu Brighton u socdaalaya iyadoo Liverpoolna ay kooxda adag ee Wolves ka la bartigelin doonaan hardanka afarta sare ee Premiershipka ama horyaalka Chelsea iyo Leicester ayaa iyaguna ciyaaraya Tottenham iyo Everton ayaa iyaguna ciyaaraya laba natiijo oo taariikhi ayaa kooxaha Ingiriisku ku reebeen kubadda Yurub toddobaadkan ayay dhaceen si cajiib leh ayaa Liverpool aanada uga yaabsatay Barcelona yaabkiisana Tottenham ayaaba iyana 10 lama ilaawana u dhigay dhalinyaradii Ajax laakiin taageerayaasha Liverpool iyo Tottenham waxay haddana ka cabanayaan iyagoo sidaa u badiyay waxay leeyihiin tigidhadii ayaa qaaliya iyo hoteeladii magaalada Madrid ee caasimadda Spain oo sanadkan marti gelinaysa finalka Champions League Maxamed Farax
ama Mo Farax loo yaqaan ayaa soo gabagabeeyay wararkii la isla dhex marayay ee ahayd goortuu garoonka orodka ku noqonayo waxa uu sheegay inuu difaacan doono tartanka dheer ee hore ugu guuleystay ee Chicago Marathon bisha October dhawaan wuxuu diiday inuu qadar kaga qayb galo orodka dheer waxa uu sheegay inuu culayska saarayo orodka dibadaha imikana waa barnaamijkii tiknoolajiyada iyo click robotiyo iyagu xamaalaya alaabadii dadku awal qaadi jireen iyo labisaad lala yaabay ayaa lagu soo bandhigay New York Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo jeedinaya shirkadda Google waxa ay soo martay telefoonada casriga ah ee Pixel qiimihiisuna macquul yahay waana $399 aad ayuu uga jaban yahay telefoonada casriga ah ee suuqa ku jira laakiin telefoon khatar ah miya sidaas ayay Google leeyihiin waxa ay sheegeen inaanay waxba kala harin awoodda iyo qaabka ay u shaqeeyaan aaladaha ay Google samayso oo dhan kulan shaqaalaha cusub ee shirkadda baabuurta ee Ford Survival robotkan waa ay taqaanaa halka ay u socoto waxa ay isticmaalaysaa qalab soo qabanaya iftiinka iyo tiknoolajiyad kala duwan oo hagaya si ay u aragto hareeraheeda iskana ilaaliso inay jidho waxyaabaha hor yaalla marka ay qaadayso qalabka dayactirka gaadiidka ee ay geynaysa meelaha looga baahan yahay Ford waxa ay sheegeen inay u saamixi doonto shaqaalaha dadka ah inay qabtaan hawlaha waaweyn kani maaha guri caadi ah se waa guri aan innaba caadi ahayn waxa uu isticmaalaa aaladda internetka qalabka dhex yaalla oo dhammina waxay ku shaqeeyaan isla internetka xataa nalka iyo sameecadaha yaalla marka aad guriga timaaddo wax waliba waxa ay u shaqaynayaan sida aad adigu doonayso carwada xayeysiinta maryaha ee sanadkii lagu qabtay New Yorkna waxa lagu soo bandhigay dhar la yaab leh oo maalmahan la hadal hayay Saak Bosen oo labiskan ku nashqadiyay daabacadda 3D labiskan waxa uu qaatay in la sameeyo 1 saacadood Jordan Duno waxa ay siiye ah waxa ay sheegtay inay dareemayso inay xiran tahay nashqad qaali ah oo farshaxan ka samaysan kani ma labiska mustaqbalka ayaa balaaninkan idin xusuusiyo wararka ugu waaweynaa caawa dawladda Kenya ayaa waxay joojiyeen duulimaadyadii tooska ah ee Muqdisho iyo Nairobi u kala duulayay waxaana maanta laga bilaabo diyaaradaha Soomaaliya ka soo duulaya mari doonaan magaalada Wajeer ee waqooyi bari sanad baa laga soo wareegay tan iyo markii ay biyo-xidheenka Kenya Solai uu jabiyay ooda waxaanu eegnay bal sida ay xaaladda dadka halka ku nool tahay caawana waxaan idinku soo gabagabeynayaa muuqaal cajiiba waa bisadaha duurjoogta ee Florida oo la leeyahay bal xagga sare ka soo daga bisad ayaa fuushay birta leydhka oo xadhkaha ay maraan waa khatarba shaqaalaha halka joogay ayaa iyagu ka damqaday bisadan badda iyadu isku gashay iyagoo halkaasi ka soo dajiyay bisadii mar walba waxaad nagala socon kartaan BBC Somali Facebook fadlan raadi BBC News Somali halkaas oo aad ka heli doontaan muuqaallo falanqeyn dheeraada iyo wararka ugu waaweyn si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka nagala soco BBC Somali Twitter iyo Instagram intaas ayaan ku soo gabagabeynaa barnaamijka caawiya caalamka waa mahadsantiin daawashadiina inta aynu dib u kulmayno maalinta Isniinta hadduu eeba idmo waxaanu dhammaanteedu leenahay nabadgelyo